koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan hawlka madaalin weli waa hogadi hawl kama daalin weli waa hogadi aryamaday isaaqo waxaad ka tagtay horuu wadaay horuu socodkow horuu wadaay howl wadeenkow horuu wadaay hantii wadaagtaay horuu wadaay aad ka tagtay maanta maalinta aabbaha adduunka waaye ma aabba farmaajo aad la hadlaysaa war farmaajo madaxweynahan ku ogaayey goormoo aabbihii soomaaliyeed noqday war aan la yaaban dadaa weli aabbisiyaad joogeen aryadhaha waa iska qaylihaysiina anigu waxaanba maqli jira subax walba saacad walba subax walba saacad walba satriga iyo laabtaan ka salaanay abbasiyaad abdulow heesku suurad badnida may ubanka aan ka haada jirtay aan hele war anna waxaan maqli jiray sareeda iyo guul barwaaqa loo siman yahay na saacidda aho nogama horraysiyaad walaana saqdhaxe inaad kursi liqday waa kaa muuqataa kacaankii dal qabsada waa ka tagaa arday horta sideeda niman raamaystay oo buundo hoosteed ku jiro sababa miyaadaan maqal yidhaaha xayla salaasa iyo madda alle waa imaanaya xayla salaasa aryadhaha warkaasaan ku soo xusuusnee 1983 jaadjoojintii ka hor nimay adduunye ugu war dambaysa waxaa la yidhi jaadka la jooji aasoo yidhi ooyaa joojiye markaasaa la yidhi madaxweynaha aasoo yidhi naw dee aadan maxaa qaaday ogaa dhaheen ninkaas aadan caddoo madaxweynaha ogaal ugu dambaysay war dadka adduunyada hore uga dhigantaa waa badan yihiinoo dadaa maanta rabin in xaqiiqada loo sheego oo raba kaliya in loo sacbiyo aan helmaylanka saabiya qudaartii afgooy banaanku eka batiyaha marka aamu waysagna madeeyow afgooyaxaad ka sheegaysaa muxogi iyo waanbihi balcad ka baxayaa xamar la keeni la'yahaye cabdullow foolbaxsi sharuur ma jira miyaa hadda kollayba waxaan hubaa horena loo sheegay sacab badan waa lagu sarqaamaa alaa ii haal kolley dawlad shacab yasdan alaan aloohaaya shacabka ama waa iska dhaafka luga ama dilanka daroon wal mahafaayidiyaasa war ma haysiine magaalada bacdweyne la yidhaaho ka tirsan gobolka mudug saakatii ka dhacday waa la yaabay wejiga ilaahay wejiga rasuulka inaan yeelayn miyay dhaheen wallaahi aan doonaynin wallaahi aan yeelayn oo billaahi aan yeelayn looma dhama warkaasiga naguma soconahayo wallaahi aan la yeelayn oo billaahi yeeli mayno yeereena war maqaato waa waray dhaha miyay dhaheen war waxaad sheegaysiin galmudug mar hore ka gudubtay warka naga dhagaysta beesaaniyaal miyay wada naqdeen war baawurlaan guruusar oo qarax laga soo buuxiyey iyo koox naftahalligayaal oo la rabay marka gaarigu qarxo inay dagaalamaan abkay abkiisow ilaahow kaasay tusin widaaday ambar leerahay hata kahor TM ka horroogsatay zow miyay la rabeen wareedhaha laydinma sheegi kara waxaana suga gaarigii markuu xerada ciidanka ku soo dhow yahay ayaa baasuuka lagu dhuftay kadibna asaga iyo wixii saaraaba waa isku gamaareen laba askari oo ciidanka xabadeeyey ugu horraysana waa ku dhinteen khasaare kaleoo nafeedna ma geysan nafsigii kaa heri waaye jecliyaa hoogga ku heesta uu yidhi wixii ay ummadda la raadihayeen horta iyo kima qabsatay waa qabsatay horaan waxaa loo yidhi ka hari weysaye waa ku haasataa war shabaabka bacadweyne aaday naceelsaliini ay u maleeyeen wargaalkacay maanta waxaa la yidhi baabuur qarax ku raran yahaa lagu qabtay aryadhaha baabuur qarax ku raran yahaa ninka qabta xoog badnaaya ewel intuu jira war ninkaas la yaab ma laho wuxuu dhegaystay mahmahdii usaama bilaadi ay ahayd walqaraxu alkabiiriya laysa ka midli qumbulatun yadawiya war qaraxu qumbulad waa ka daran yaha miyaa bilaadi ku mahmaahay wax kastaaba ha dhaceene kollay bilaadi nabad kuma mahmaahin lagana dhaxli maayo war bacadiin waa idinka sheegaye walla weyn midda ka dhacday war ma ka haysin aryaa farxaan muusow anigu waa yaabee walla weyn iyo daafeed meeqa kiilomitiray isu jiraan horta war walla weyn waayahan war fiican kama soo yeerin dad la dilay iyo dad la gubay iyo guddoomiye xanaaqa un baan maqlaynay aryaa muusow waxaan ad ka dibirtay cunugan macluulka oo jaranjarada kori waayo wax kama siisido waraadhe farxaan garaamkiisii ama cabdikuus cunay war nimanyo warkii hore war soo dhaaf haye ma waayeel walax lahaa yimid maanta waxaa bannaan baxay ciidan militari ah oo ka soo baxay furmaha
bartamaha shabeellada dhexe waxayna sheegeen 18 bilood inaysan mushaar qaadan waxaana dhageysanay dheen khudbadii madaxweynuhu baarlamaanka ka jeediyey oo ahayd ciidamadii mushaarkoodii waa siinay weliba waan u kordhinay war ciidanka mushaarkoodii waa siinay waana u kordhinay iyo maanta ciidan mushaar la'aan ka cabanaya say isu qabanaysaa labadaasi war doorashaa dhacayso wakhtigeeda ku dhacaysaa xisbiyaa tartamayo 4.5 na waa tahay qof iyo codna waa tahay say isu qabanaysaa midda kale waa lay doorta doorashana ma ogole siday isu qabahee safayliinka dheel waana bus in deersidoo leerataas hadow war deentii waa la cafiyey deen kalena waa nolo haystaa say isu qabanaysaa war qadaraan heshiis dawladnahay imaaraadkana waa la heshiinaynaa say isu qabanaysaa war dimuqraadiyadaan rabnaa dhaliishuna waana dhibay say isu qabanaysaa war dawlad lugaayaska teegdeena iyo inay warka dollar Trump ku weeri saas kuga badayaan aryaadaha dawladaan nahay dadweynahana warkiisa kuma jirna say isu qabahe waryaada dawladaan nahay iyo sharciga loo hogaansami maayo say isu qabanaysaa war mucaaradaan nahay musharaxan ku mideysanahay milihin say isu qabanay aryaadaha war ma haysiina madasha xisbiyada qaranku waxay la kulmeen James Iswaal ninkii la dhahay waxay isu sheegeen waagadan lama ogaa la yiri war maanta waxaan u malaynayaa dawladda Soomaaliya safiirka Mareykanka dollar mooto inay nan garaado qori doonto oo ay mooto u saari doonto Mareykanka musuqmaasuq miyuu ku eedeeyay markaasay dhibsadaan baydhaw dad la ka suuq yeeray aryaadaha dadkii gololay lagu laayo miyuu ka waramay warka waad la waayatay Donald Trump asagoo Ilhaan Cumar haysta wuxuu yiri waxay ka timid dal aan dawlad lahayn nidaam lahayn kala dambayno ka jirin ammaan ka jirin boolis lahayn marka nidaam daradii ay ka timid ay Mareykanka la rabtaa uu yiri aryaadaha Donald Trump xamar miyuu yimid Allah xawna yaqaana war Donald Trump uu bilaan la tirsiji wili ma kuwiinana maaha war sidii Amiin Jeeso Ahmed Madow u daba qaatay ayuu Donald Trump Ilhaan Cumar ugu daba qaatay war hadda ka hor sayidkii oo raba inuu hal nin wax ka sheego ayaa Soomaali oo dhan gabay ku caayay marka Donald Trump asagoo raba inuu Ilhaan Cumar kaliya wax ka sheego ayuu Soomaali oo dhan u gafay iyo qarannimadeedii aryaadaha madaxweyne Farmaajo waxaan kula tari lahay Donald Trump warkan uu nayiri ilaa uu apologies ka bixiyo inuu xiriirka u jaro safaaradana nooga soo qaado tan Amerikaankana naga diro Abdullah warka may baan fahmay arday macallinka le isku anaanoy Abdullah madaxweynuhu soo muwaadin Mareykan ma ahan soo xiriirka Mareykanka u goynaya wariya qaran dumisa tahay madaxweynaheena muwaadin shisheeye maaha baasaboorkoodina waa mar hore u celi war baarlamaanka maanta waxay ansixiyeen xeerka qoondada haweenka oo dhigaya in kuraasta ay hadda haweenka ku fadhiyaan aanu rag u tartami karin yaa awal gabar u lahayd xaninka soo jira xildhibaan Daahir Amiin Jeeso wuxuu yiri kuraastayna noo dhaafa kuraastiirna waa idinku tartamaynaa hooyinka Soomaaliyeed waxaan u arkaa inay sadbursi wadaan yaa ku qabso ku qadib may sida gabdhihi barteena xal loola yaaba war shalay madasha xisbiyada qaran waa ku yiri xeerka 4 qodob ee guddiga baarlamaanku soo sameeyaan la ansixin haddii kala qalalaasa ka imaan doona saacada kadibna waxa la filayaa baa la yiri maamul goboleedyadu inay soo saari doonaan warkaas lamida inaan la ansixin qodobadaas warun ku sugay waxa la yiri madaxweyne qorqor wuxuu yiri maamul cusub ayaan ahay aniga baddaas ay gelinina war qorqor wuxuu yiri la yiri baarlamaanku wasiirada yihiin yaan leegu dirin ma mooshiinow ka cabsaha war ma haysiine qolada artiska samaysaa waxay soo sawireen madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiye Cabdi Xaashiyo feertamaya madaxweyne Farmaajo waxay u galiyeen surweel calanka Itoobiya ka samaysan gudoomiye Cabdi Xaashina waxay u galiyeen surweel calanka Soomaaliya ka samaysan kadibna madaxweyne Farmaajo hees bilaabay la yiri wuxuuna yiri ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysa anuu Muqdisho aan ku dhashay kadibna Cabdi Xaashi heesa la yiri wuxuu yiri waqtigii dhamaayo waa dhaqaaqi doontaa Muqdisho waad ku dhalatay laakiin uma dhalan war odayaashu waxay isuma reeban war ma sawirkaas taageerayaasha Cabdi Xaashi suubiyeena aryaadaha Amiin Caamir sida wax walba u soo qoraya mugi afka loo buuxshaa laga nastaa la yiri ma kuwa kale cusub gadaal ka yimid haddana war meesina Muqdisho tartan cusub ayaa ka soo baxay yaa askari oo shacab dili karamiya yaa jid xiri karamiya meel biif dhiyaan ay bajaajka aan shuur koro ereena qashan la qaadaya cariya horroogsa karamiyay dhaheen war waxaas Muqdisho waa ka soo tagteen dhageysta dalxiiska ay ku tartamayaan degmooyinka Muqdisho waxaana ugu dalxiis badanaa la yiri xeebta weyn ee degmada Daynile war ubiga Kaaraan ayaa ka dalxiis badanaa la yiri war walaagaas doon ya meeska ka hada kiyaalo ka dalxiis fayleeli war waxaas oo dhan tago bi Mareykanka garas baalay ayaa ka dalxiis badanaa la yiri war beeraha mooska iyo aqshidi iyo helwa
ayaa ugu dalxiis wanaagsan baa layidhi war goofaha shangaani amarweyniinka dalxiis fayleeleeri aryaadhaha beeraha xamar jajab iyo waaberi intaad uga tagteen war waadigii wardhigle iyo howlwadaag iyo hodan xageed uga tagteen war badan waa tihiin shibis iyo baandheere yaa dalxiis ku gaara aryaadhaha dharkayn leeya wada jir miyaan webiga soo gaarin waa maran tihiin war waxaan maqli jiray dad ninkii dalxiis iyo tamashla doonayow dalkeennaan la heli karin dunida meel u dhigantee soo daawo ee arag nakeena markaan waa kacayna runkaan aadaynaa aqal cusbaan soo dhisanaynaa aramankii kacis iyo shay waa isla kacaynaa aryaadhaha muqdisho daawo dacalada daawo dacalada xamar daawo dacalada daawo dacalada banaadir daawo dacalada daawo dacalada daawo dacalada daawo dacalada haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana fure si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dheh oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi